markaad maqasho ereyga El Clasico waxa suuragal ah in maskaxdaadu ku soo dhacdo oo kaliya inuu yahay tartan u dhaxeeya labada tiir ee kubadda cagta Spain, Real Madrid iyo Barcelona. haddii aad ka mid tahay taageerayaasha Barcelona waxa aad dusha ka haysaa halayskan waa ka badan yahay koox oo kaliya. haddaba maalin ma ku fikirtaa meesha uu ka yimid halayskan caanka ah ma soo ogtahay wejiga qarsoon ee El Clasico sanadkii 1943 si gaar ah intii lagu guda jiray xil ciyaareedkii ciyaaraha isu soo noqoshada oo ahaa mid ka mid ah wareegyada koobka Spain ayaa madaxii nabadgelyada ee xukuumadda Spain Franco waxa uu uga hanjabay ciyaartoyda kooxda Barcelona in ay la muhraan tahay in ay ku guuldareystaan ciyaarta kadib markii ay ciyaartii kala baxa kala hormareen dhigooda 3 gool oo nadiif ah. ciyaartiina waxay ku dhamaatay natiijo gacan ku samaysa oo ah in Real Madrid ay ku guuleysatay taas oo gaartay 12 gool iyo gool. ha yeeshee FIFA waxa ay diiday in ay diiwaan geliso natiijada dhacdadaasina waxa ay noqotay bar madow oo taariikhda gashay. shakil-aan waa xog madax daalinaysa balse waxa ka sii madax daalis badan waa mool gundheer oo ku jira taariikhda El Clasico oo ay dhiig iyo halgan ku dheehan yihiin. waqtiga 1925 goobta Spain magaalada Barcelona. dhacdadu waa ciyaar u dhaxaysa kooxaha Ingiriiska iyo xulka Barcelona. astaanta Spain ayaa laga qaadayaa balse dadweynaha gobolka Catalonia ay u yimid taageerada Barcelona iyo daawadayaasha ciyaartuba uma istaagin umana muujin wax xushmad ah astaanta qaranka Spain. taasina waxay adduunka tusisay sida dadka Catalonia ugu dhigan yahay qowmiyadiisa iyo rabitaanka badan ee uu hayo inay ka go'aan Spain. dawladii Spain ee xilligaasi ayaa aad uga carootay dareenkaas waxaana ay bilowday argosiga. waxa ay erisay asaasi iyo madaxii Barcelona Joan Gamba waxaana ay joojisay hawshii kooxda muddo 6 bilood ah. ناقوس الخطر gambaleelka halista 11 sano kadib dhacdadaas waxaa qarxay dagaalkii sokeeye ee Spain. waxa uu ahaa hardan u dhaxeeya taageerayaasha nidaamka boqortooyada iyo taageerayaasha nidaamka jamhuuriyadda kaas oo aan ka fogeyn garoomada kubadda cagta. waxa uu ahaa afgambigii militari ee ugu dambeeyay ee dagaalkii sokeeye ee isna ugu dambeeyay taariikhda Yurubta galbeed ee casriga ah. taageerayaashii nidaamka boqortooyada uu hogaaminayay Francisco Franco waxay awoodoodii ballaarneed u jeediyeen sidii ay u ridi lahaayeen xukuumadda taageersan nidaamka jamhuuriyadda iyagoo taageero ka helaya Naaziyiinta Jarmalka iyo fajiisaha Talyaaniga. gobolka Catalonia oo janjeersaday dhinaca jamhuuriyinta oo taageero ka helayay midowga Sofiyeeti waxay taageeradaasi u kici doontaa qiimo sare waxaana uu ku waayi doonaa wax badan. ma aha oo kaliya toogashada madaxii gobolkaas ee taariikhiga ahaa Josep Sonyal balse Catalonia oo dhan ayaa hawada laga duqeeyay sanadkii 1938 sidaas awgeed 10,000 oo qof ayaa dhagta dhiigga loo daray 3 maalin gudahood. xaruntii kooxda Barcelona ayaa ku duntay duqeyntaas. koobkii ay kooxdu qaadayna burburkii xarunta ayaa lagu aasay kadib markii dagaalkii hakadayna waxaa la toogtay 25,000 oo qof oo ahaa dadkii deganaa gobolka Catalonia. زمن الحديد waqtigii birta iyo naarta dagaalkii waxa uu dhamaaday sanadkii 1939 iyadoo guushu raacday xiradii ciidanka ee Francisco Franco. kadib dhimashada nus milyan qof waxa laga maarmaan ahayd in askariga hamuunta u qaba xukunka uu qabsado talada kadib markii uu afgambiyay boqortooyadii uu difaacayay. taasina waxa ay hordhac u ahayd in Spain ay gasho 36 sano oo xukun dab iyo holac ah. magangelyada Franco ee ammaanka ah. Franco xil hore ayuu sii ogaa awoodda kubadda cagta. waxa uu fahmay in shacbiyadda kooxaha ay suurtagal u tahay in ay u noqoto buundo ama bridge uu u maro damaciisa siyaasadeed. sidaas awgeed waxa isku dayay inuu caburiyo gobolada gooni-goosadka ah ee Baska iyo Catalonia isaga oo lafaha ka garaacaya kooxaha kubadda cagta ee goboladaas. si gaar ah xilligaas ayuu soo baxay markii uu horeysay halkudhigga caanka ah ee Barcelona ka badan oo kaliya hal koox. guusha dhabta ay ku xaqiijiyay kala taliyaha askariga waxay ahayd inuu kooxda Real Madrid u adeegsado hab uu ku jiro godoomintii ay saareen dawladaha Yurub kaas oo ka dhashay isbahaysigii uu la galay Naaziyiinta Jarmalka iyo fajiistaha Talyaaniga. صفقة مشبوهة heshiis madmadow ku jiro bilowgii xukunkii Franco intii u dhaxaysay sanadii 1939 ilaa 1954 Real Madrid kuma guuleysan habeeraatee in ay qaado koob muhiim u ah oo Spain laga ciyaaro halka ay Barcelona ku guuleysatay 5 koob. waxay noqotay guuldarrooyin isdaba joog ah oo ku qaaday Franco inuu ku dhiirado wax uusan awoodin Hitler in uu ku dhiirado. sanadkii 1943 kadib hanjabaad nabadgelyo oo ka dhana xulka kooxda Barcelona oo ahayd in ay la muhraan tahay in Real Madrid ka guuleysato kooxda Barcelona ayaa caalamka diiwaan geliyay natiijo ciyaareed gacan ku samays ah. waxay natiijadaasi u dhaweeyay ciyaarta kubadda kolayga waxay gaartay 12 gool iyo gool. ha yeeshee FIFA waxay diiday in ay meel mariso natiijadaas. dhacdadaasina waxay noqotay bar madow oo ku taala taariikhda. dhacdo kale oo la yaab leh ayaa dhici doonta. xidigii Barcelona ee ka soo jeeday Argentina Alfredo Di Stefano oo heshiis la galay Barcelona una ciyaaray 3 kulan oo saaxiibtinimo ayaa si aan toos ahayn waxa uu soo farageliyay Francisco Franco si uu qalqalgeliyo heshiiska ciyaaryahanka ka yimid kooxda Millonarios ee Colombia. jananku waxa uu ciyaaryahankaas u soo weeciyay dhinaca Real Madrid. FIFA ayaa soo faragelisay arrinta waxaana sugtay heshiiska Barca ayee Franco ayaa gacan togaaleeyay isagoo u soo maray xiriirka kubadda cagta Spain iyadoo oo xiriirkuna soo saaray go'aan reebaya in la soo iibsado ciyaaryahanada shisheeye. sidaas awgeed Alfredo Di Stefano waxa uu galay gacanta Franco kadibna heshiis taag daran ayaa gooyay in la qaybsado oo la wadaago ciyaaryahanka isagoo xilli u ciyaaraya Real halka xilliga kalena u ciyaarayo Barcelona.
xilli ciyaareedkii ugu horreeyay ee De Stefano u ciyaaray Real Madrid kulankii koowaad ee El Clasico waxa uu biraha ka garaacay shabaqa Barcelona weli heshiisku sidii loo qorsheeyay uma dhaqan gelin waxa bilowday xilligii De Stefano isaga oo markiisii koowaad la curtay ruuxaanta Real Madrid kaas oo horreeyay kubadda cagta ee Yurub qaybtii dambe kontameeyadii isaga oo General Franco u hibeeyay danihiisii siyaasadeed ee dibadda kuwaas oo muddo daba joogay العصر الذهبي لريال مدريد. فرانكو waxa uu ka shidal qaadan jiray naasiga Jarmalka kaas oo Olimbikada Berlin uga faa'iideystay si uu idhaha uga sameeyo nidaamkii ka jiray halkaas iyo Talyaaniga oo ku guuleystay xilligaas koobkii adduunka kaas oo xilkiisa ka hor iyo kadib guul kasta oo uu gaaro ku heesi jiray sidaa daraadeed Franco waxa uu go'aansaday in Real Madrid ciyaarto kaalintaas isaga oo dhammaan taageeradiisa isugu geeyay fariintiisa muhiimka u ah Real waxa heshiis la gashay ciyaaryahanadii ugu wanaagsanaa xilligaas oo ahaa nooca Alfredo De Stefano iyo Franco Busquets sidaas awgeed Real waxay bilowday go'aaminta cidda qaadaysa koobka Yurub iyadoo oo gacanta ku dhigtay shantii ugu horeysay ee taariikhda si isdaba joog ah sidaas awgeed masawirka Spain ee Yurub waxa uu saameeyay kooxda kubadda cagta ee jiirta goolka kooxaha ka soo horjeeda sanadkii 1960 koobka ummadaha Yurub waxa isugu soo baxay xulka Spain oo la ciyaari lahaa xulka midowgii Sofiyeed oo aad looga baqay jiray isagoo ka baqayay inuu ka horjabo xiriyaha ciidanka hanti wadaaga kaas oo taageerayay dimuqraadiyiintii intii uu socday dagaalkii sokeeye ee Spain hayeeshee arrinkaas kuma soo noqonin ciyaaraha ummadda Yurub sanadkii 1964 jabku waa halkiisa balse ma ahayn wax suuragal ah in uu aqbali karo Franco markii ay labada kooxood isku farasaareen dhamaadkii tartankaas sida dhacdayna xulkii Spain waxa uu awood u yeeshay in uu jab gaarsiiyo kooxdii midowgii Sofiyeed isagoo xaqiijiyay koobkiisii koowaad oo ahaa kan kali ah oo uu qaaday qarnigii 20aad كرة القدم kubadda cagtu daroogada shucuubta suuragal maaha in kubadda laga saaro siyaasadda adduunka oo xukumo Frankana ma koobna guulaha koobab inaanayso waxa uu awood u yeeshay maamulaha militariga ah in uu indhaha ka jeediyo musuqmaasuqa xukuumaddiisa iyo xeerarka joorfalka ku dhisan marka la joogo gudaha dalkiisa dhinaca caalamkan waxa uu suura gashay inuu soo ceshado xiriirkii uu la lahaa Yurub si gaar ah wuxuu naftiisa boos uga helay qorshihii Mareykanka ee ka hortagidda isfidinta hanti wadaagii Sofiyeed ee Yurub ugu dambeyntiina waxa uu karti u yeeshay in uu ka takhaluso caabtii ay kaga tageen saaxiibadiisii hore ee Hitler iyo Mussolini Franco waxa uu geeriyooday sanadkii 1975 balse cadaawadii uga tagay kubadda cagtu lama aysan dhiman kulankii El Clasico ee xilli ciyaareedkii 2012 ka dhacay garoonka kooxda Barcelona ee Camp Nou iyadoo ay ka daawanayaan telefishinada wax ka badan 400 milyan oo qof ayaa 98 kun oo taageero reer Catalonia waxa ay kor u taageen boorar ay ku qoran yihiin midabada casaanka iyo dahabiga iyagoo oo ku dhawaaqaya hal eray oo kaliya madax banaani 5 sano ayaa ka soo wareegtay waxaana yimid xilli ciyaareedkii 2017 sanadkaasi waxa uu xambaarsanaa afti guud oo dadweyne oo loo qaado madax banaanida gobolka Catalonia oo dadkiisu gaarayo 7 milyan iyo bar qof maalintii qabashada aftida dadweyne iyadoo booliska Spain dibadbaxayaasha ku cabiranayo wadooyinka waliba sabab aan suuragal ahayn in ay isaga dhacdo jadwalka iswaadka waxa lagu qoray Barcelona iyo Las Palmas oo ciyaartoodu ka dhacaysay garoonka Camp Nou isla markaas kooxda Barcelona oo aan ahayn kaliya koox sida uu sheegay Halayska ayaa maamulkeedu waxa uu istusiyay in aanu suuragal ahayn in la qabto ciyaarta kadib markii ay dhaawacmeen 800 qof kadib isku dhac dhex maray booliska iyo muwaadiniinta hayeeshee xiriirka kubadda cagta Spain ayaa ku adkaystay isaga oo Barca uga hanjabay in uu soo harayo ciqaab adag haddii ay dib u dhigto kulanka Las Palmas isagoo sheegay nabadeynta kulanka ay tahay shaqo u taala booliska Catalonia kooxdii Barca waa ogolaatay hayeeshee hal shardi ayaa jira kaas oo ahaa in tartanka la qabto taageero la'aan iyo waliba garoon iyo albaabo xiran Barcelona waxa ay ciyaartay iyadoo aan rabin banaanka garoonkana waxa ay Catalonia ku dhawaaqaysay madax banaani arrinkii waxa uu ka gudbay Spain waxaana gaaray adduunka kadib markii xulka Spain uu ku guuleystay koobkii kubadda cagta adduunka ee ka dhacay dalka Koonfur Afrika sanadkii 2010 Xavi Hernandez iyo Carlos Puyol ayaa kor u qaaday calanka casaanka iyo dahabiga intii lagu jiray xafladda dabaaldega Pep Guardiola lama ciqaaban intii uu joogay horyaalka kubadda cagta Ingiriiska sababtoo ah waxa uu xiran yahay astaanta siyaasadeed waxa uu bixiyaa ganaax yeeshay wali waxa uu sii joogteeyay in uu xirto astaanta siyaasadeed oo u suran xabadka shaatigiisa El Clasico waa jiraysa iyadoo oo ka dhigan halgan ka dhashay asaas siyaasadeed taas oo aan ilaa maanta dhammaan waa sii jirayaan ciyaaraha Barcelona iyo Real Madrid iyagoo oo leh muhiimad gaar ah oo ka gudubtay xadka garoomada kubadda cagta Real waa fursad Spain leedahay oo sii jiri doonta si ay u xaqiijiso xornimada Madrid iyo awoodda ay ku haysato gobolada dalka Barcelona waa fursad ay Catalonia leedahay oo sii wadi doonta iska caabinta kana soo horjeeda Spain oo aan gobolka Catalonia u arag mid ka gooyi kara haddaba El Clasico waa siyaasad iska soo horjeeda iyo hardan ku saabsan haybta Spain oo ay matalayso Real Madrid iyo haybta Catalonia oo ay matalayso Barcelona haddaba haybtee adigu taageeraysaa